Hydrocephalus waa xaalad neerfaha ah oo lagu garto si aan caadi ahayn in ay ugu ururaan dheecaanka maskaxda CSF oo ah cerebrospinal fluid ee ku jiro ventriculeska ama godadka maskaxda. CSF waa dareere cad oo aan midab lahayn oo ku wareegsan maskaxda iyo lafdhabarta, taasoo ka ilaalisa dhaawaca dhismayaashan jilicsan. Waxa kale oo ay ka caawisaa in laga saaro wasakhda maskaxda iyo nidaaminta bay'ada kiimikeed. Sababaha keena hydrocephalus: ugu horreyn, xannibaad. Tani waxay dhacdaa marka socodka ama qulqulka CSF uu xannibmo meel jidhkeeda caadiga ka mid ahaa. Xannibaaddu waxay noqon kartaa mid gudaha ventriculeska laftooda oo ah internal hydrocephalus ama mid ka baxsan habka ventricularka oo ah external hydrocephalus. Midda xigta, nuugista CSF oo daciif ah. Xaaladaha qaarkood maskaxdu waxaa laga yaabaa in aanay si fiican u nuugin CSF-ka, taas oo keento in ay ururto xitaa iyada oo aan waxba xannibin. Waxaa jirta sabab saddexaad laakiin ma badna, oo sababtaasuna waxay tahay in la soo daayo dheecaankii xaddigii loo baahnaa xaddi ka badan. Taasina waxay keeni kartaa hydrocephalus. Noocyada hydrocephalus: nooca ugu horeeya waa congenital hydrocephalus oo loo yaqaano hydrocephaloska lagu dhasho. Xilliga dhalashada, noocan waxaa sababi kara cilladaha korriinka ee saameeya socodka ama qulqulka CSF sida cilladaha tubbada neerfaha ee neural tube defect ama arrimaha hidde-sideyaasha. Sidoo kale waxaa sababi kara intrauterine infectionska ama caabuqyada intrauterine-ka sida rubella, toxoplasmosis, syphilis iyo congenital malformationska. Nooca xiga waa acquired hydrocephalus. Tani waxay dhacdaa dhalashada kadib, waxaana sababa xaalado xannibi kara ama wiiqi kara socodka ama qulqulka CSF sida burooyinka maskaxda, caabuqa meningiska ama xuubka ku daharan maskaxda, iyo dhiigbaxa maskaxda ama dhaawacyada madaxa. Nooca ugu dambeeya waxaa loo yaqaanaa normal pressure hydrocephalus oo ah cadaadiska caadiga ah ee hydrocephalus. Noocani wuxuu caadi ahaan saameeyaa dadka waaweyn. Gudaha normal pressure hydrocephaloska waxaa jiro ballaarin aan caadi ahayn oo ah ventriculeska ama godadka maskaxda, iyaga oo aan kordhin cadaadiska CSF ilaa heerarka dambe mooyee. Calaamadaha waxaa ka mid noqon karo ama calaamadaha lagu arki karo noocani waxaa ka mid noqon karo socodka oo ku adkaado qofka, kaadi ceshad la'aanta iyo garashada oo daciifta. Astaamaha hydrocephalus: calaamadaha hydrocephalus way kala duwanaan karaan iyaga oo ku xiran da'da, sababta xaaladda iyo heerka uu kobcay madaxa. Calaamadaha ugu caansan waxaa ka mid ah madax xanuunka, inta badan waxay kasii xumaataa subaxii. Sidoo kale lalabo iyo matag, gaar ahaan dhallaanka iyo carruurta yaryar. Aragga oo caad karo ama uu labalabo wax u arko, taasina waxaa sababi kara cadaadiska dareemaha indhaha awgeed. Dhibaatooyinka isku dheelitirnaanta iyo isku dabaridka, socodka oo adkaado ama isku dheelitirnaanta oo qalqal ku yimaado. Garashada oo liidato, dhibaatooyinka xasuusta, diira saaridda oo adkaata iyo shakhsiyaadka ama shakhsiyadda qofka oo isbedesha. Sidoo kale madaxa oo weyn sababo la xiriiro korriinka degdega ah ee madaxa, taas oo sababtay ku aruurka ay ku aruurayaan CSF-ka ama dareeraha. Ogaanshaha cudurka: cilladda si loo ogaado waxaa loo baahan yahay caadi ahaan isku dabaridka qiimeynta calaamadaha bukaanka iyo daraasadaha sawir qaadista sida CT scan ama MRI, iyo mararka qaarkood cabbirada cadaadiska cerebrospinal fluid iyada oo loo marayo lumbar puncture ama LP. Sawirku wuxuu gacan ka geysan karaa in la aqoonsado ballaarnaanta ventriculeska ama godadka maskaxda iyo wax kasta oo sababi kara xannibaad ama nuugista CSF ee daciifka ah. Daaweynta hydrocephalus waxay inta badan u baahan tahay faragelin qaliin oo loogu talagalay in la leexiyo ama laga saaro CSF-ka xad-dhaafka ah si loo yareeyo cadaadiska maskaxda. Doorashooyinka daaweynta waxaa ka mid ah shunt placement ama meeleynta shuntiga. Waa nidaam qaliin oo tubo dabacsan la dhigayo ama la gelinayo si ay CSF-ka xad-dhaafka ah uga soo saarto ventriculeska ama godadka maskaxda uguna gudbiso qayb kale oo jirka ka mid ah. Badanaa waxaa lagu xiraa caloosha, halkaas oo dib looga soo nuugi kara hadhoodii markii loo baahdo. Sidoo kale endoscopic third ventriculostomy oo noqon karo qaliinkii hore beddelkiisa, oo waxaa dalool yar laga sameynayaa sagxadda ventricalka saddexaad si loogu ogolaado CSF-ka in ay ka gudubto xannibaadda oo ay ka soo baxdo nidaamka ventricularka. Haddii aan soo koobo, hydrocephalus waa xaalad adag oo u baahan qiimeyn taxaddar leh iyo maareynta dhakhaatiirta neerfayaasha iyo dhakhaatiirta qaliinka maskaxda iyo khabiiro kale si loo wanaajiyo natiijooyinka loona yareeyo cilladaha neerfayaasha ee suurtagalka ah. Baaritaanka hore iyo faragelinta wakhtiga hore ayaa muhiim ah si looga hortago dhaawaca maskaxeed ee aan dib loo soo celin karin, loona wanaajiyo natiijooyinka mustaqbalka fog. Muuqaalkeena intaas ayuu ku egyahay. Waxaa inoo balana muuqaalka xiga hadduu Alla idmo. Khayr badan.